أصحابي أنا بدنا شركتها في المانتا سمي وحنا naga soo gaarta atooro filin sameynay ama atirsho filin sameynaysi ayaa isdishay sababtoo isku dilayaan waxay taa wax aad iyo aad u yar waxa jira dad fara badan oo ayagoo dhalinyarada dunida macsalaamay qaarkoodna ay isdileen halka qaarkoodna xaalado kale ay u dhinteen maanta waxaan rabaa inaan idin tusiyo dadkaasi qayb ka mid ah haddaba yaan hadal idinku daalinay muuqaalkan uga bogta nambarka koowaad Vishali Takar Vishali badana waxay caan ku ahayd sameynta musalladka Hindiya waxayna ka soo muuqatay musalla aad iyo aad u fara badan waxaana ka mid ah Sosaraal Siman iyo waliba Mohini To waxayna dhimatay 15 Oktoobar 2022 intaysan dhiman ka hor waxay qortay waraaqad ay ku sheegaysa gacaliyaad inuu dhibaatiyay daadii ay ku geeriyootana waxay ahayd 30 sano number 2 Sidhu Mose Wala wuxuu ahaa fanaan Banjaabi ah heesiisan la wada jecel yahay 29 May 2022 xilli habeen ay tahay gurigiisa lagu dhex toogtay daadu ku dhintana waxay ahayd 28 sano heesiisan caan ay ahaayeen number 3 Balavi Day Balavi waxay atirsho Bengali ah filmaan badan iyo musalla fara badan ayay ka soo muuqatay waxayna geeriyootay sanadka markuu ahaa 15 May 2022 daadii ku geeriyootana waxay ahayd 25 sano waxayna ka mid tahay dadka ayagoo yar geeriyooday number 4 Andrela Sharma sidoo kale Andrela waxay atirsho Bengali ah filmaan iyo musallad ayay sameysay waxayna dhimatay 20 November 2022 aadna way xanuunsaneed daadii ku dhimatana waxay 24 sano number 5 Sonali Fogad waxay ahayd qof siyaasi ah haddana saas ay social media caan ayay ka ahayd sidoo kalena waxay ka soo muuqatay Big Boss 40 haddii aad taqaanaan markaas wixii ka dambeeyay 23 Agoosto 2022 ayaa waxa lagu dilay magaalada Gooba sidoo kale qoyskeedu waxay sheegeen qoftaas inaysan dhiman oo la dilay daadii ku dhimatana 40 jir ayay ahayd waxayna ka mid tahay dadka naadirka ay weynaanta ku dhintay number 6 Sidant Fair sidoo kale Sidant wuxuu ahaa atooro ku soo caanbaxay musallaadkii labadii kurikoodii wuxuu ku soo caanbaxay musalkii Ilaahay ka samsay sidoo kale musallaadku waxa uu ku jilay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad waxa uu geeriyooday 12 November 2022 daada markaas uu ku geeriyoodana waxay ahayd 46 sano number 7 Kushal Banjaabi Kushal wuxuu ahaa nin caan oo la yaqaan oo filmaantii musallaadka ka soo muuqday 26 December 2019 ayuu isdilay wuxuuna isku dilay walwalahay daraadiisa wuxuuna ku geeriyooday 42 sano number 8 Sejal Sharma Sejal waxay ka mid ah dadka musallaadka sameeya waxayna ka soo muuqatay musalkii lagu magacaabay Dilto Happy 24 January 2020 ayay gurigeeda isku dhex dishay daada ay ku geeriyootana waxay 26 sano number 9 Siddharth Shukla Siddharth wuxuu ahaa actor caan oo wadanka Hindiya laga wada yaqaano musalsalaad fara badan iyo filmaan fara badan oo waaweyn ayuu ka soo muuqday asiga Big Boss 13 ayuu ku guuleystay sidoo kale canaamisan kor ayuu kacday 2 September 2021 ayuu geeriyooday wuxuuna u dhintay wadna xanuun ku soo bood daraadiisa daada ku geeriyoodana waxay 40 sano number 10 Divya Bhatnagar Divya waxay ka soo muuqatay musalka lagu magacaabo Rishta Ka Kehlahe 7 December 2020 ayadana waxa la leeyahay waxay u dhimatay wadna xanuun ku soo bood daraadiisa daada ku dhimatana waxay 24 sano number 11 waa KK magaciisa dhameystiran waa Krishna Kumar Kunnath sidoo kale asiga wuxuu ahaa fanaan wadanka dadka jooga dhan codkiisa ayay ku waalnaayeen wuxuuna geeriyooday 31 May 2022 asxaabtiisa iyo taageerihiisa dhan uu ka oysiiyay daadu ku dhintana waxay ahayd 53 sano number 12 Dipesh Ban sidoo kalena asiga waxa loo yaqaanaa Malik Khan magacaasna wuxuu ugu baxay musal uu jilay daraadeeda musalsalkaasna wuxuu ahaa Babiji Garbalhe 23 July 2022 ayuu geeriyooday taasna taageerihiisa way aamin waayeen oo ay ka naxeen wuxuuna ku geeriyooday 41 sano jirka number 13 Sushan Singh Rajput Sushan yana aqooni waa actor caan dadkoo dhan way wada yaqaanaan filmaan hirgalana Bollywood ka dakor waa uu soo sameeyay asiga 14 June 2020 ayuu isdilay Sushan waliba gurigiisa ayuu isku dhex dilay asiga wuxuuna ku geeriyooday 34 jirka number 14 Tunisha Sharma Tunisha waxay jilaysay musalka lagu magacaabo Ali Baba Destiane Kabul waxayna geeriyootay taariikhda markii 24 December 2022 waxayna isku dishay musalka meesha lagu jilay kadib isbitaal ayaa loola cararay balse meesha ayay ku geeriyootay waxayna ku dhimatay 20 sano oo kaliya number 15 Bartusha Banerjee Bartusha sidoo kale waxay ka soo muuqatay musalka lagu magacaabo Rishta Ka Kehlatahe iyo Balika Badu waxay dhimatay 1 April 2016 waxayna isku dhex dishay gurigeeda oo magaalada Bombay ku yaala kadib baaritaan xataa waa la sameeyay waxayna ku geeriyootay daada 24 jirka number 16 Samir Sharma Samir sidoo kale musallaadka filmaanta ayuu sameyn jiray waxaan lagu xasuustaa musalka lagu magacaabay Rishte Pyar Ke Liye 4 Agoosto 2020 ayuu gurigiisa isku dhex dilay daada dunidan uu ku macsalaameyna waxay 44 sano asxaabi anaga waxaan idin tusnay dadka isdilay iyo dadka caadiga u dhintay balse lama baana xaalad kasta hadii ay ku soo wajahdo inaad isdisho hadii aad muuqaalkeena ka heshay commentiga noogu reeb sidoo kale waxaan ka codsanaynaa like iyo share iyo follow inaad noogu dadaasho aad iyo aad u mahadsantiin